وصو أرورة هي هذا يبال أرجح السدي وإيرني هذا أمها سنتي ما أنتوا حنصوب بغني دقمة هذا يبال هو حقيقي دقمة تاريخي أحيد لكن عدو كوهب سدي إن مدأنا لبعض بدل مجهي تاني waxay tusaale u tahay waxa ay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada iyo shacabkoo wada jira awoodda ay u leeyihiin in ay maaragta iska qaadaan gumaysiga diineed iyo gumaysiga bani aadan labadaba nimankan khawaarijta ah ee lala diriraayo waa niman ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisina ka been sheegay xuquuqda qofka muslimka ahna mar walba ku tumanayay nimankaasi waa niman wax walba oo diintu xarintay ka shaqeynayay hadday tahay hantida dadka iyo dhiigga dadka hadday tahay argagaxgelinta dadka iyo hadday tahay dhiig miirashada dadka intaba taasi marka waxay ku tusaysaa in waxa aan u dirirayno oo badbaadinta diinta ah badbaadinta dalka ah badbaadinta calanka ah ay tahay shay muqadas ah qof walba oo Soomaaliyeed oo maanta cadowgan wax un maaragtaa ku dhufan karo inuu ku dhufto ayaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee gobolada Soomaaliyeed maaragta caawinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mahad idinka gaarto waajibaad gaar ah oo idin saarnaa ma ah laakiin waa dareen wadaniyadeed iyo dareen muslimnimo ayaad u soo kacdeen waxaad u soo kacdeen in hantidiina badbaadsataan waxaad u soo kacdeen in dalkiina iyo dadkiina badbaadsataan inta hartay waxaan aaminsanahay inaan wax weyn maaragta ka qaban karno inta yaroo hartayna inaan dhameystiri karno ayaan aaminsanahay waxaan rabaa guud ahaan in shacabka Soomaaliyeed la dardaarmo oo aan kula dardaarmo nimankan waqti yaraa u haree aan iswada dhaafin nimankan waqti yaraa u haree aan iswada dhaafino deegaanadan dadka ku noolna waxaan rabaa inaan ugu baaqo amnigooda inay sugtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkiisa waa gutay inta harsan ayuu baacsan doonaa dadka deegaanka ayaa laga rabaa in amniga qaybta ugu muhiimsan ay ka qaataan hantidooda ay shabaabka cishtaan wiilashooda u yeertaan wiilasha la khalday oo Soomaaliyeed oo weli argagixisada ku dhex nool oo khawaarijta ku dhex nool waxaan leenahay ka soo taga dadkiina iyo shacabkiina Soomaaliyeed maaragta u adeega ciidamada ka mid noqda ganacsatada ka mid noqda xoolalayda ka mid noqda wax walba oo dadka Soomaaliyeed sameynaya ka mid noqda laakiin qoriyaha argagixisada ku hoos dhimanina aakhirana naar ku aadina adduunyada cadaab adduunyaha ku mutaysanina salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay u soo aroora hee aadan yabaal argagixisadii waa eerine aadaa u mahadsantihiin